إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني ugu horeyn naftayda iyo tiina waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa aayadahaas qur'aanka ah ee aan aqrinayna waxa weeyaan macnaha ay xambaarsan yihiin waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsado muxaadaro kasta iyo kelimad walba oo lasu sheegayana macnaheeda waxa weeyaan ilaahay ha laga boqo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadaa waxay tahay miftaaxu kulli khayrin furaha khayrka lagu furtay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa weeye intaas kadib kelimada aan rabno galabta inaan idinla wadaago waxay tahay aaathaaru dunuub walmacaasi dembiyada uu bani aadamku gelayo iyo saamaynta ay ku leedahay bani aadamka fardi ahaan iyo mujtamacba ikhwaani macsiyadu culimmadu waxay yidhahdaan waxay ka timaadaa imaa ficlu maxduurin aw tarku ma'muurin qofka inuu sameeyo wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka nahyeeyey oo u diiday aw tarku ma'muurin ama inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu amray uu qofku ka tago labadaas ayay ka timaadaa macsiyadu labadaa kama baxsana in ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu kuu diray aad samayn weyso ama in ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu kaa reebay aad samayso labadaas ayay ka timaadaa macsiyadu dhinac kale haddii laga fiiriyo macsiyadu mid qofka uu jawaarixda ka sameeyo iyo mid ku tacalluqda qalbiga ayay u qaybsantaa ikhwaani macaasidu waxay leedahay asallo ama usuul wax la yidhaahdo bay leedahay usuushaasi waa saddex sida culimmadu ay sheegaan asalka koowaad waxay tahay ama wuxuu yahay tacalluqu lqalbi bigayr illaah in qalbiga lagu xiro cid aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ahayn taasna waxaa ka dhasha shirki ayaa ka dhasha oo ah dembi qofka bani aadamka uu sameeyo kan ugu weyn nebiga sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey saxaabiga jaliilkaa uu weydiiyey uu yidhi rasuulka ilaahayow dembi keebaa ugu weyn nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala cid barbar dhigto isagoo ku abuuray tacalluqu lqalbi bigayr illaah baa marka wuxuu yahay asalka koowaad ee usuusha macaasida asalka labaad ee usuusha macaasida waxay tahay daacatu lquwa alqadbiya qofka inuu adeeco awoodda caro ee ku jirta ama qofka marka uu caroodo
inuu caradiisa uu fuliyo waxa ay u owleynayso marka ay amrayso taana waxaa ka dhasha marka qofkii in uu geysto falal fool xun sida dil iyo waxyaabaha la midka hadduu caradiisa adeeco waa asalka labaad ee macsiyada marka daacatul quwa alqadbiya baa la yidhaahdaa asalka saddexaad ee macsiyaduna waxa weeyaan daacatul quwa ashahwaaniya qofka inuu adeeco awoodda shahwo ay ku jirta iyadana waxaa ka ratibma oo ka dhasha zino iyo waxyaabo badan oo fawaaxish ah ayaa ka dhasha saa la adligeed ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexdaa asalba qur'aanka kariimka ah aayad kaliya buu ku ururiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun cibaad الraxmaan ilaahay marka uu sifaynayey wuxuu yidhi waa kuwa laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar ilaahay la jiritaankiisa cid kale ma baryaan oo alla subxaanahu wa tacaala iyo cid kale isma barbar dhigaan baryada sidoo kale walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi nafna ma dilaan marka ta koowaad ee ah waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar waxay ka badbaadeen cibaaduraxmaanka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaynayo asalka koowaad ee macsiyada kaasoo ah tacalluqu lqalbi bigayr illaah in qalbiga lagu xidho cidaan ilaahay ahayn way ka badbaadeen qolyahan ilaahay ammaanayo subxaanahu wa tacaala ee la yidhaahdo cibaaduraxmaan way ka badbaadeen asalkaa oo waxa weeyaan ilaahay baa tilmaamay wuxuu leeyahay waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar ilaahay la jiritaankiisa ilaah kale lama baryaan sidoo kale walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi nafna ma dilaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xaaraantinimeeyey dilkeeda in xaq lagu dilo maahe halkanna waxay ka badbaadeen asalkii labaad ee macaasida kaasoo ah daacatu lquwa alqadbiya inay adeecaan awooddooda caro ay ku jirtay waa asalka labaad oo macaasida way ka badbaadeen cibaaduraxmaan ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa tilmaamay saasuu ku sifaynaya qodobka saddexaad wuxuu yahay walaa yaznuun mana zinaystaan buu yidhi kuwa iyaga ah cibaaduraxmaan mana zinaystaan waxay halkan ka badbaadeen daacatu lquwa ashahwaaniya oo ah asalka saddexaad ee macaasida soo ma aragti haddaba qofka bani aadamka ah ee muslimka ah waxaa loo baahan yahay shirkiga inuu kaga badbaado iimaan caradiisana uu kaga badbaado iyo xanaaqiisana uu kaga badbaado cadaalad sidaasoo kale shahwada iyo waxa gubaya ee shahawaad ahna inuu kaga badbaado cifo iyo dhowrsanaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegayaa oo inoo sheegayaa qofkii shirkiga kaga nabadgala iimaan sidoo kale caradiisana cadaalad kaga nabadgala shahwadana kaga nabadgala cifo ajarka uu mudanayo buu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay wamaa cinda allaahi khayrun wa abqaa liladiina aamanuu wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alihmi waalfawaaxish waidaa maa qadibuu hum yakfiruun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa cinda allaahi khayrun wa abqaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa agtiisa yaallo ayaa khayr badan oo baaqi ahaansho badan liladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey ayuu u baaqinimo badan yahay oo u khayr badan yahay wa calaa rabbihim yatawakkaluun ilaahay bayna tala saarsadaan oo waxay ka badbaadeen tacalluqu lqalbi bigayr illaah in qalbiga lagu xidho cid aan ilaahay ahayn ayay ka badbaadeen marka soo ma aragti aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alihmi waalfawaaxish waa kuwa aan samaynaynin dunuubta kuwooda waaweyn iyo fawaaxishta fawaaxishta waxaa la yidhaahdaa waa zinada weeye baa loo isticmaalaa inta badan iyada weeye magacyada lagu idlaaqaa ka badbaadeen daacatu lquwa ashahwaaniya ayay ka badbaadeen waidaa maa qadibuu hum yakfiruun marka ay caroodaanna iska dhaafa halkanna waxay ka badbaadeen daacatu lquwa alqadbiya awooddii caro ee ku jirtayna waxay uga badbaadeen cadaalad oo markii lagu gardaroodo way iska dhaafaan ayib
سادرتيد معاصدو أصوشا صدحدا أيا وأصل وحجر وحلا يراهدو مداخل المعاصي أما معاصدة مالها أي قفك كسو قشو علماء waxay ku sheegaan ilaa 4 qaybood meelaha ay macaasida qofka ka soo gasho waxa la kala yiraahdaa al-qatarat al-lafadhat al-khatawat iyo an-nadarat al-qatarat oo ah waxyaabaha qalbiga ku soo dhacaya an-nadarat oo ah waxyaabaha ishu ay fiirinayso al-lafadhat oo ah waxyaabaha carabku ku dhawaaqayo al-khatawat oo ah waxyaabaha lugtu ay ku talaabsanayso أفرتاس مدخل أي كسوق الشاب معاصد أولا هذين كهر مرنو النظرات وحيابها إيشو أي فيرين يسو أن دمر كمؤمنين تأه المؤمنات كأه يرجع مؤمنين تأه إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري مركا يوضد الصعانيان إني أرجو ذا اللابان من هنا علماء وحي هذا مركا حواجزته وحي كب اللابطة عنده oo ishu waxa weeyaan baa la yiraahdaa rasuulu shahwa wa isha baa la yiraahdaa sadarteed ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna bayhad labadaba saasa loola hadlay ragina waa lala hadlay oo waxa la indhihiina laaba kaligood ma ahayne dumarkana waa lala hadlay yaghuddna min absarihinna baa indhahooda halaabeen من هنا مركا وحا لا يري إن إنها للابو وحي أصل أطهي إن فرجق الحفظيو يعني إنها أولا حفظيو أولا اللابو وقفك أرقيسة أولابو ومحرماتك وحيابه إلهي كحارنت النمية آنو فيرين وحي أصل أطهي إنو حبنكي سترنك أهو حفظيو أي أصل أطهي وإلهي سبحانه وتعالى آيات ضبا وحكو بالله يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فرجق أولا حفظيو وكذا بيسا oo nadradii iyo eegmadii oo la xifdiyo oo la ilaaliyo oo waxyaabihi Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka xaraantinimeeyay in la eego ayaa waxa weeyaan lagu bilaabay farjigina waa la dambeysiyay marka waxaan garanaynaa halka ka fahmaynaa culimaduna ay sheegayaan in waxa weeyaan asal ay u tahay araga oo la xifdiyay xifdu lil furujina asalatu madkhalka labaad way macaasidu ka soo gasho waxa la yiraahdaa al-qatarat waxyaabaha qalbiga ku soo dhacayo qalbiga waxyaabaha ku soo dhacayo qofka bani aadamka ah wax walba oo qalbigiisa ku soo dhaca haday xun yihiin inuu u sii daayo ma aha haday wanaagsan yihiin ha u daayo laakiin haday wax xun yihiin waxyaabaha qalbigiisa ku soo dhacayo inuu u daayo ma markii waa inuu ka saaro ama shubhaha haato waxa ku soo dhacay qalbigiisa ama waxyaabo kale markaasi iskaga soo dhacay oo aan wanaagsaneyn ha ahaan inuu u daayo maaha qof lidalika ilaahay subhanahu wa ta'ala aayad qura ayuu ku kulmiyay in la xifdiyo araga qalbigana la ilaaliyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur ilaahay waa og yahay waxa ishu ay qarinayso iyo qulubta ishu waxa ay khiyaameynayso iyo qulubta waxa ay qarinayso ilaahay waa og soo ma aragtay culimadu waxay yiraahdaan aayada waxa lagu kulmiyay laba madkhal oo min madakhil al-ma'asi kamida waxayna kala yihiin النظرات والقدرات لبداس با لغو كلميي اصل كسدح مدخل كسدحات واي معاصيد كسو غشو قفكه waxay tahay اللفظات waxyaabaha qofku uu ku hadlayo qofka waxa uu ku hadlayo arabka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu noo siiyay inaanu kaga faa'iideysano waxyaabaha wanaagsan waa nimco ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay arab haddii aad u adeegsato khayrka iyo waxyaabaha wanaagsan iyo dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala ujeedada uu ku abuurtay iyo masaalixdaada adduunyo midaada aakhiro haddii aad u isticmaasho wuxuu ku noqon karaa waxa weeye nimco waxa weeyaan marka maalinta aakhirana aad ku badbaado naar kaga badbaado haddii se aad kaga faa'iideysan weyso oo waxa weeyaan xumaanta iyo wax walba aad ku sheegayso oo carabkaaga aadan ilaalinayn oo waxyaabihii laga xaaraantinimeeyay oo dhan aad waxa weeyaan marnaba aadan u aabayeelaynin wuxuu noqon doonaa hoog buu kugu noqon doonaa carabka nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabigii weydiiyay ee yiri rasuulka ilaahay oo mana loo qabanayaa waxa carabka yaga
duulduulkiisa mana loo qabanayaa waxyaabaha ka soo baxaya carabkeenna nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi hakilatka ummuk wahal yakubu nnaasu fi nnaari ilaa xasaa'idu alsinatihim dadka ma wax kala naarta loogu tuuraya ilaa carabkooda waxa ka soo baxo duulduulkiisa baa dadka naarta loogu guraya soo ma aragti ayib sidaasoo kale nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan xadiid uu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam ina akara maa yudkhilu nnaasa annaara alfamu walfarj dadka waxa ugu badan oo ay naarta ku gelayaan maalinta qiyaamaha wax kale ma aha alfamu walfarj waa carabka iyo waxa weeyaan iyo xubinka taranka labadaas baa ugu badan waxa dadku ay naarta ku gelayaan maalinta qiyaamaha ayib sidoo kale nabiga sala allahu calayhi wasalam habeenada ka mid ah ayaa la kaxeeyey xadiidkii aadka u dheeraa ee waxa weeyaan saxiixa ah nabiga sala allahu calayhi wasalam habeenkaa la kaxeeyey ee labada malag ay kaxeeyeen ee la tusayay dad fara badan oo xayaatada barsakha ah lagu ciqaabayo oo lagu cadaabayo qabriga yacni cadaabulqabriga ku jira waxaa ka mid ahaa nin uu arkay nabiga sala allahu calayhi wasalam isagoo birta la yidhaahdo kalluubka ama hilibka la suro shiqigiisa midigta ama dhinaciisa ama daankiisa ama dhabankiisa waxaa tidhaahdo la gelinayo o lagu jeexayo haddana dhinaca kale uu soo wareeganayo oo kaga jeexayo malag baa sidaa u gelaya qofkaas oo wuxuu ku ciqaabayaa xayaatadii barsaqa ahayd nabiga sal alla ly slam waa weydiiyey indaliq bay idinka tag laakiin markuu soo noqday looga warramayey ninkaasi waxay ugu fasireen malaa'igtii wuxuu ahaa nin markuu adduunyada joogay war uu sheego oo been ah meel walba gaari jirtay oo dadku isu tabin jireen war beena oo uu sheego ay dadku isu tabin jireen oo aafaaqda iyo magaalada hareeraheeda dhan ay gaari jirtay warkaasi beenta imisaa marka war la faafiyaa oo beena ayib haddana wasaa'ilu iclaamkii iyo wasaa'ilu tawaasul waxyaabaha wax fududeeya mobile iyo hadduu ahaan lahaa internet iyo way iska fududahay qof baa meel wax ku qoraya waa faafinaya sii faafi weligeed baa ha faafta marka hadda kalluubkaasina waa yaallay ogow qofkaa ka toobadkeeni waxaa ka mid a meelaha qofka macaasidu ay ka soo gasho ayaan ku dhex jirnay kan afraad wuxuu ahaa alkhatawaat lugtu waxyaabaha ay ku tallaabsanayso luguhu waa nicam ilaahay ku siiyey oo aad ku soconayso oo meesha aad u socotee maqsadkaada mar walba ku gaarsiinaysa sidaa darteed waxaa la doonayaa lugahaagu mar walba inay u socdaan khayrka iyo wanaagga meesha waxaa jira wax la yidhaahdo cathratu lisaan wa cathratu lqadam simbiriraxsho uu simbiriraxdo carabka iyo lugtu simbiriraxsho ay simbiriraxato ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaad uraxmaan markuu tilmaamayey wuxuu yidhi wa cibaadu uraxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawnan waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama cibaadu raxmaanka marka ay soconayaan waa kuwa dhulka markay soconayaan si degan u socda وبالتالي meesha ay u socdaanna waa meel khayr oo wanaagsan weeye meel xun uma socdaan ayib وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما markii kuwa gardaroolayaasha juhalada ay la hadlaanna nabaday bay iska dhahaan iyaguna hadal xun iyo la tirsi iyo ma sameeyaan waa ka dhaqaaqaan dadka wanaagsan sidaas weeye cibaadu raxmaanka leeyahay kuwa ilaahay uu isu tiiriyay doomadiisa wanaagooda iyo fadiiladooda darteed soo ma aragtay idan marka lugtaadu marka ay soconayso meesha ay u socoto haday khayr tahayna ajar baa lagaaga qorayaa haddii lugtaadu meesha ay u socoto meel shar oo aan faa'iido kugu jirin manfaca dunya mid aakhir oo bal dambi lagaaga qorayo ay u socoto waxa weeyaan dee alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid wasaa'ishu waxay leedahay ku xukun tahay baa la yidhahdaa maqaasida iyo meesha loo socdo bay la xukun tahay ayib intaas kadib waxaan rabnaa inaan baraarujinno macaasida aahaar baa ka dhalata saamayn ayaa ka dhalata fardi ahaanna way uga dhalataa oo qof ayay u saamaysaa kooxna way u saamaysaa macaasida uu dadku galayo markaan ka soo bilowna abuna aadam calayhi salaam maxaa ka soo saaray jannada hal dembi buu ahaa oo ahaa geedii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u diiday ee la yidhi walaa taqrabaa haadihi shajarata fatakuunaa min aldaalimiin geedii uu cunay aadam calayhi salaam jannadii ayaa looga soo saaray soo ma aragtid aadam marka wuxuu ku dhacay macaasida labadii qaybood ay ugu horreysay aanu sheegnay ee ahayd
tarku ma'muurin aw ficlu maxduur ficlu maxduurin buu ku dhacay abuna aadam calayhi salaam wax loo diiday buu sameeyey soo ma aragta ibliis lacanahu llah maxaa ka soo ceeriyey malakuutu samaawaat oo fogeyn dhaweyntiisii fogeyn ugu beddeshay dhawaanshihii ugu dhowaa allah subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igta iyo samaawaadka maxaa fogeyn ugu beddelay naxariistii ilaahay subxaanahu wa tacaalana lacanad ugu beddeshay hal dembi buu ahaa takabur buu ahaa wuxuu diiday ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisii buu diiday tarku ma'muurin buu ku dhacay soo ma aragta ilaahay subxaanahu wa tacaala baa amray inuu aadam u sujuudo waa diiday isaguna kibir dartii oo wuxuu yidhi anaa ka khayr badan iyo wahaakada halkaasay la martay waxay keentay marka in dhaweyntiisana fogeyn loogu bedelo naxariistiisana lacanad loogu bedelo baa ka dhalatay soo ma aragta intaa kadib ummadihii hore qowmu nuux maxaa halaagay ilaa biyuhu ay ka sarmareen buuraha fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر محا كان قوم نوح إلا هلاغو معاصبة والنبي قودي بيديدين شعيب قوم كيسي غير مدين محا هلاغي oo daruurta dul keenay maalintii yowm dhullan loo yaqaanay daruurtii ay moodayeen roob da'aya markii dambana ku noqotay cadaab da'aya ku noqotay soo macaasi ma ahayn qowmu saalix kadalik maxaa halaagay thamuud qaylada qabatay iyagoo soo jeeda weliba fircoon iyo junuudiisii in badda lagu qarqiyo arwaaxdoodina naarta loo sii qaado maxaa sababay dembi iyo macsiyo unbuu ahaa sidoo kale nebiyullaahi huud qoomkiisii ree caad ee lagu halaagay meeshii ahayd ii sheeg dabayshii lagu halaagay kuwii axqaaf deganaa wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaafi waqad khalat الnuduru min bayni yadayhi وmin khalfihi anlaa tacbuduu ila allah inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim maxay dhaheen qaaluu aji'tanaa lita'fikana can aalihatina فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين نولا كالا بلين عذاب طبيشي وقبطي 7 ليال و8 أيام حصوما سومالت سيدها بين يتضوى مع الموضوع ازدبجوغا بي طبيشي إن عنو قبل ضمان مركا وحكا لما هي معاسيون بيهد إلهي سبحانه وتعالى باشاقي فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلهي سبحانه وتعالى مظلومين يقع ظلمين سو ما عرفت طيب أضرارت كنا تهضم مع عاصدة هذا كهر مرة فردي أهان مجتمعنا هذا نصوص دور أحاديث بان سوق قادنينا وحيابها أسامين تبدن وأحاديث نسكا سامين بدل سيسب dhowr xadiid baan soo qaadanaynaa afraad ay saamayn ku yeelatay macaasidooda xadiidka koowaad wuxuu yahay xadiidka saxiixu muslim uu soo saarayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi halaaatun laa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim almusbilu izaarahu waalmannaanu bima acdaa waalmunafiqu silcatahu bilxalif alkaadib nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay saddex oo dadka ka mida muslimiinta weeye la soco saddex dadka muslimiinta ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo eegi maya xaggooda sidoo kale lama hadlayo haddee culimmadu waxay yidhaha halkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala la hadli mayo hadal naxariisa lagula hadli mayo sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala tahiri mayo dembigooda ka dhaqi mayo waxayna leeyihiin cadaab xanuunjee bay leeyihin saddexdaasi bal saddexdaas u fiirsa waxay yihiin almusbilu izaara waa ninka maradiisa jiida kaas waxa weeyaan dumarka ma quseeya waa ragga ninka maradiisa jiidaya dhulka ku jiidaya ka labaad walmannaanu bimaa actaa qofka sheega waxa uu bixiyo waxa sadaqaa uu bixiyo xoogaaga yarkuu meel ku bixiyo qof ku sadaqaysto waa sheegaa
macaasidiisa iyo dunuubtiisa ma tiriyo laakiin xoogaaga yarku masaajid ku darsaday ama masaakiin siiyey ama maskiin siiyey ama waxa weeyaan uu sadaqaystay waa sheegaya laakiin xumaantiisa ma tiriyo dunuub fara badan baa laga yaabaa inaanu sheegin dollar uu meel ku bixiyana inuu sheego ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu leeyahay laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni walada sadaqaadkiina ha iska burinina yacni manniga haddaad sheegto sadaqadii way buraysaa waana lagugu ciqaabayaa sida xadiidka ka muuqata sidoo kale waxaa ka mid a walmunafiqu silcatahu bilxalif alkaadib qofka badeecadiisa ku socodsiiya qoftani waxay khusaysaa qofkii ganacsadaha qofka ku socodsiiya badeecadiisa dhaar been shirkad aan soo saarin buu dhihi waa soo saartay lacag aanu ka soo bixin buu dhihi waan ka soo bixiyey intaasaan ka soo bixiyey yacni wahaakada beentaasu daldalaya shaygii 100 buu ka soo baxshay wuxuu ku dhaaranaya 150 inuu ka soo baxshay dee qofkii wuxuu isleeyahay marka nin 150 wuxuu ka soo xoogay ugu dar 50 kale ugu dar 100 meeshaanu beena buu qariyay 50 uu dul saaro beena iyo 50 ninka ka qaatay soo ma aragtid shaygii shirkad aan soo saarin buu wuxuu dhahayaa way soo saartay si qofkan uu raba ku tarwiijinaya dhaar buu ku tarwiijinaya ku socodsiinaya wixiis oo qofkan waxa weeye uu ku qancinaya soo ma aragtid saddexdaas marka waa saddex shakhsi oo waxa weeyaan dunuubta ay galeen ay saamaysay soo ma aragtid saameyn bay ku yeelatay waxay keentay dunuubtaas ay galeen inaanu ilaahay la hadlin maalinta qiyaamaha inaanu waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggooda eegin in waxa weeyaan cadaab xanuujiye ay leeyihiin dembiyada kala duwan ay la yimaadeen soo ma aragtid xadiidka labaad wuxuu yahay xadiid isaguna xadiid abu umaama nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط وإمام قوم وهم له كارهون نبي صلى الله عليه وسلم حليه سدح وضدك كمدة مسلمين توي لا تجاوز صلاتهم آذانهم صلاة دوضة أرضا في ميسر دقه يعني لقى أقبل مايو واجب كم باكرنا عيه لكن وح أجر ويكهريان أما ثواب مجرته لا ثواب لهم والله واجبكم ما كنا عيوبين سوء لي لكن وح أجر كل يهين مجرته وحكم إلى ستة ضعف العبد الآبق أدون كي بحصلي أدون ده أنه هذا ما هي أدون كسيد كيسي كعربي صلاة كستو تكذب وحويا وحيوان فعل مال حتى يرجع إلى الصلاة قضب كل بعض وحويا وامرأة باتت هويني وبريستي وزوجها عليها ساخط نكي يدنو وعريسين سو باركت وبريستي وذات كيدي الزوج كيدنو وعريسين وعرق السحر ويك عريسيس هويني ذا سيادة haddii ay ku caasisay oo ay amarkiisa diiday wax sharci ah te dabcan cadaabkii ciqaabkani waxa weeye hadday ka toobadkeen waa qabanaya laakiin haddii wax sharci ah ay ku diiday te waa la taa'ata li makhluuqin fi ma'siyati al-khaliq zawjkeeda waxa ay kaga hortimid hadduu yahay wax sharci ah waxa weeyaan cuquubadani ku dhicmayso laakiin hadduu yahay wax isagu uu gar ku leeyahay oo aan sharci ahayn ay kaga hortimid waxa weeyaan yaani dhibta ka dhalatay ee saameyntani ee raadka ka dhashay uu saameynaya ka saddexaadna wuxuu ahaa wa imaamu qowmin wahum lahu kaarihuun nin dadka tujinayo oo imaam ah iyaguna ay necab yihiin dadku meesha keligiisa iska haysto tujinayo oo waxa weeyaan loo soo dhawaado ma ogolo oo waxa weeyaan ii sheeg waxay qiradiisii bay dadku ogoleen oo xaqi dayaanadiisii iyo diintiisii bay ku haystaan oo durayaan oo dursan yihiin oo waxyaabahaas dhan bay ku haystaan oo wax sharci ah laakiin wax sharci darra waxa weeye dee loogu curdaa iyaga waxa weeye wax ku heli maayaan gar kuma helayaan isaguna ciqaab ku mutaysan maayo laakiin wax gar ah haddii ay ku haystaan idan marka waxaan uga socdaa mamra'atun baatat wa zawjuha calayha saaqa haweeney waa bariisatay ninkeeduna waxa weeyaan uu caraysan yahay waa arrin khatar inuu fudud yahay haddii la moodayo waxaan meesha ku haynaa marka 6 qof oo uu saameeyay dunuubtii ay galeen si toos ah uu saameeyay saddex hore iyo saddex dhan kale
حديث كلا وحوي هاي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال وحوي انتصب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان فمن أنت لا أم لك وحكى هذا يا حديث كان قضية آدي وقبضا وبرشدين قبضا ووحل إرادة قبيلته قبيلكو يا أبترسينتو ووحل أقوليه بل ومأمور ويو شريعة أحكام بأنه شريعة كهذا لكن وحل الدين يا قبيلته قفك ميزان كيس أورن إنه كل سو قبيلته إنه قفك شعيلك يا تاجرك وتاجر يا وحقبتك وقبنا يا حريرته وحريرها يو إنه كل سو وميزاني هالبيك وقدره قبيلة يوجهي قفك ويسون لويسم وأيو كانوا يسكفوجين وأيو ميزان كيس وإنتاس تلتي ده وتا لكن قفك إنه أكتر صدو أولو بهاي طيب حديث كان مركز اللبان أيام النبي صلى الله عليه وسلم أكتي سوء أكتر صدي مدبا وحي العرب وحانا هاي فلان ابن فلان هبل إن هبل بانا هاي فمن أنت لا أم لك ورأضو ياتهاي هو يذاك ويدي وفانا يا سمعت كي تانو جواب النبي صلى الله عليه وسلم باو جواب أوفيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصب رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان حتى عد 9 فمن أنت لا أم لك قال أنا فلان ابن فلان ابن إسلام فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتصبين أما أنت أيها المنتمي أو المنتصب إلى 9 في النار فأنت عاشرهم وأما أنت يا هذا المنتصب إلى 2 في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة حديث أحمد بن مسلم صاري النبي صلى الله عليه وسلم لبدي السحابي مركو سحابي يقول أنا إن هبل بانا هاي أضو كما تهاي هو يذاك ويدي النبي قال جوابي تام كي جواب وحجري حلقي النبي موسى عليه السلام أيام لمن إنسوا أكتر صدي مد وحجري أنا هبل بانا هاي إن هبل بانا إلى أوسجال أو تري مرك أضو يا تهاي هو يذاك ويدي هذا كانوا كلوي النبي موسى كي كلا أكتر صدي مرك إستجنا وحجري أنا وحنا هبل إن إسلام مسلم بانا يعني مسلم بن تراب هكذا أساسه هالكاسو يقلي أنت كذب أيا إلهي سبحانه وتعالى نبي موسى وحيوذي حالك اللبضان إن يمد والبماشة وقدم بينه إلهي سبحانه وتعالى نبي موسى وحيوذي اللبضان المصير كود وحيوذي مد كم ترصدي سقال أبو إلا سقال أبو بو ترصدي كل قد نار قوة تشيرو فأنت عاشرهم أنت طبعا باكو تهيب أنت كودة طبنات باتا إلهي ما موسى وحيوذي عليه السلام أما لكن متكن لبا قضية ترصد أما سدح قضية كسدحان كدغي وحوي الحديث هو كسدحان كدغي إسلام كان أو جنة كجرة أديك كودة يعني سدحان باتا لبا أبو ترصدي أو جنة كجرة فأنت ثالثهما أديك كودة سدحان باتا في الجنة وجنة لجلسة سمعت نكن سجال كترصدي سجال كنا جلافي أو مصير كودي ولا سودة تجيو الله شيء يهلك يقدم بينيا إسقين وإسقلافتي وطبعا وإسقنا دقي نار تبو قريب سوما أرتقف كان ده إسقوا النور حتى النار تلوه بلنقاضو إله سبحانه وتعالى إسقوا النور والنار بلنقاضو قف قاسي توبت كيني مي وقرنا إسا أبو لهب سيصلى نارا ذات اللهب توبت كان مجرى مر حتى لو بلنقاضو النار قلي إسقوا النور توبت كان مجرى كاسي لغا ما حويا رجق أبو حديث كلا وحو يهي مرك هلكا waxaan ku haynaa 7 qof oo sameeyay dambigooda 3 xadiidkii hore iyo 3 xadiidkii labaad iyo mid kan abtirsaday ilaa 9 oday ee ku faanaya qabiilka iyo qabyaalada xadiidka kale wuxuu yahay xadiid ibn Umar oo soo warinayo imaam Ahmad oo soo saaray musnadkiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri 3 la yadkhuluna al-jannata saddex dadka kamid ah jannadu gali maayaan ka koowaad wuxuu ahaa al-aaqil walidayhi wad-dayuth wa rajulatu nisaa nabiga sallallahu alayhi wasallam saddex jannada gali maayaan saddexdaasi waxay kala ahaayeen al-aaqil walidayhi ka walidiintiisa caaqa ku ah ee waxa weeyaan caasiga ku ah warkooda aan maqlin هذا حقوق والدين ولا قرنا يا شريعة الإسلام كمنزلة أي نكتة إيماش أي جيسة
إلهي سبحانه وتعالى مر والباء وسقوا حقي سشيء القرآن بقى كجرا حق وكحجة حقي حق والدين تكحجة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مر والباء إلهي سبحانه وتعالى والشيء وحقي سه وحكحجة حق لبدا والد يضم منزلة بجاي لبدا والد حتى وحي حق ليهين تهدي قاليه إن معروف لبرنا سعد إنه وقاص صحابي مركا أي صو إسلامتي مركا وصو إسلامي أيه هو يدي لا دقالنتي وصدح مع الموت كدوات waxay tiri anu waxna cuni maayseeda waxna cabi maay ila soo noqoto saabi baad noqotay waad leexatay ila diintaada ku soo noqoto anu waxna cuni maay abad waxna cabi maay dhowr maalmo banaankaas iska fadhiday maalinta saddexaad buu intuu tagay wuxuu yiri hooyo hadaad leedahay kun naf iska daa hal naf oo maalin walba ay midika tagayso نفسا أي كاجا تجيسو لما يا أنا كسر نقطة كذب إلهي سبحانه وتعالى حق يسوي كسر دجي وإن جاهداك على أن لا تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الدونك لكن معروف بتقول رقم يسايا هناك سمعت الدونك معروف بتقول رقم يسا لكن هذيك كل الدجالان يعني سكوت يعني إني كل حيان وإن إيه شريك يشوف حكي أنت فلا تطع محايا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقوا أضيع ما يلبد وارد وحي إلهي سبحانه وتعالى لقوا عاصيه لبد وارد لقوا أضيع ما سو باركت حتى مرك قفك عاق لوالديه ولا بد والد عاقك جنة مجلي سجن هدان كتوبت كيني وبالتالي الدنيا لفت هذا وتجربة الأركي وضعضينا إن بدن السجن كويسا كن قضاء كويسا كتر هذول اللي بيس والد عاق كن قضاء السجن ولا كويس عطاباش وحقفك اللبات الحديث كان تلمام أيوه waxay tahay dayuudka qofka dayuudka waxa la yiraahdaa qofka ehelkiisa xumaanta ku daawada oo ku fiirsada oo aan ka celin islaamtiisa waa qaabo oo yaani aan xijaabanaynin Allahumma musta'an arurtiisi gabadhiisi iyo waxa weeyaan محرم لام بس كسفريان أولادي سيقار صلاة ما تكتو وهكذا مع عصيدة يحمانتو إيه الكيسة كدا وضع وجمنا الدجو هو يأمد كدورها حل كاسمت أضيق كليه صار ما هو يدا لفت كذا حطي المه هذا حمانته يا مع عصيدة قبل هذا كد ديوثت بين غنيسة طيب حمانته كدا وأولاد هذا ويسن كعرين ويسن أجدجين ويسن كنهين وكرهين إذا ديوثت بين غنيسة ما هذا ديوثكو وحرق قارقوا والبو إيه الكيسة حمانته كدا ولا ديوث بون غنيا isaguna waxa weeye jannadu gali maayo ilaa toobad keeno ka saddexaad oo xadiidkan tilmaamaya waxay tahay warajulatu nisaa dumarka ragga isu ekeysiyo ninka iska dhigo oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ragga iyo dumarka uu abuuray cibaadadiisuna uu abuuray waxyaabaha takaaliifta ahna waa u simay shariicada islaamkana mukhaatab bay ku yihiin labada waa lagu hadlay إلهي سبحانه وتعالى ومسؤول ولا ويدين يا مالت قيامها مد ولا سؤال يا وأسميهين إلا ما لا يرير وشرعه ويكسر ريبتين لكن أمام الله لحساب تنك يقف والبتكليف يواجب كلا صاري وأسميهين ما لا يرير وشرعه ويكسر ريبتين حضوا مركب لبس بالوك للسمية رجعنا لبس بالو السمية هوين كان لبس بالو سمي شرع هذا وسميس هذا هو مركه هوين كأسوء كيسي الرجل أو سيد الرجل كلا أول لبسانه هيو سيد الرجل كلا واحد ليه سيد الرجل كلا وحوي أسعانه يا مركه أسعانه يان يقول نار بيجلي يان والجنة وجلي ما يان سيد حديث قاعد سو ما أردت هذا أنا كتبت كين أدوية تشوفان هذا هو مركه دم بيجا أي جلد أي سدح لأنه قفل بواسامي عقب والديك وسامي يعني ديوثك وسامي دنبيسي وعذاب وقلي رجلة النساء نسدوكا حديث كان وحويا مركز سدح وتلمامي طبعا قف بان هاي سنة مركز أو مدول بدنبيسي وسامي مدول بدنبيسي وسامي ويا شيء وحيابها كم إذا قفك معاصد وإذا حرسيس وحا كم إذا قفك إن لقى جايسي علمي علمي إن لقى قاضي حفظي إن لقى قاضي رزقي إن لو بركين وايو
ducadiisa iyo baryadiisa in la ajiibi waayo ayaa ka mid nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabiga markuu waaninayay wuxuu yiri adib mat'amaka tustajab da'watuka waxa aad cunayso wanaaj wax wanaagsan ha ahaado xalaal ah tustajab da'watuka baryadaada hal ajiibi sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wad garanaysan ninkii waxa weeyaan يعني كم وقتي آثارت الدعوة اللي الدعاء البريدة اللي أقبلي أردن أي كم وقتي أو يا ربي لها إن بريدة اللي أقبلي ويا صابته أنا وحي هاي مطعم كيسة ملبس كيسة مشرب كيسة يعني وحي عني وحي عبي وحي قوضني حرام بوسق نحن شاحية مركزه قعمها كل تاجي إلهي بريا فأنا يستجاب سير الله أقبل يا كائسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدا سولي معصيتي بقى كانت يو ساميسي إلا بريدي سلاجيب ويقف والبو إنك مدأ وحو باهن يهي إلهي سبحانه وتعالى وحو دونيا إن بريدي سلاجيبه وإلهي إنه أقبله حتى معاصي كل حجرته دعاء هذا إن أقبلي ويبي حريص بتاعمك تاسا كان رانيس فعلا وسداس دعاء هذا إن أقبلين وإلهي سبحانه وتعالى أن أقبلين تاسي أفراد بي هيك مرك مجتمع أهان ويؤسام يسام معاصر حديث كم إذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو صحيحة ابن ماجه وصوصار كتاب كيس السنن حديث كاسي وحال لقورنا يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحير أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم حديث كان وحنا نوش عملنا يا ونوسو كوبيا وحن كسو بحني فرد يوقف معاصي وسيدا أي أساميسي حديث كان وحنا نوش شيء مجتمع أهان سيدا معاصي أي أساميسو مجتمع أهان سيدا معاصي أي أساميسو النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين بولها الليل هذا مهاجرين هذول لها الليل كل يقول قاروا معه كل يقول قاروا معه أنا وحوي خطام لأمته أما خطام لجميع أمته لما مضى لها الليل وركان أنا وأنا لها الليل النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه هاي شن الريموت هذه اللي يدكوا امتحانه اللي يدكوا ابتلايه إلهي بأنا كما قال يا inaad gaartaan oo idin musiibadaas idin ku dhacda nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay koow lam tadhhar al fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri faahishadu kama muuqato oo kama soo daahirto qawm illa haday ka soo muuqato ila ay muujistaan hadii ay sidaa sameeyaan وحويان نحدود وحا كفافة ضاعونك iyo xanuuno aan lagu gareyn ku iyaga ka horeeyay oo yaashooda fuxshiga waxa weey waa zinada innahu kana fahishatan wa sa'a sabila soo ilaahay ma idan marka qoom iyo dad hadii zinadu ay ku dhaxfaafto oo la qarsan waayo oo ay banaanka u soo muuqato zinadii عالم الإسلامي أنا وهذا نوع سجار إلهي بان كم قالينا يعني عالم الإسلامي وحا كتيرة يعني هذا ضلك دودي سوق بحر وحا كتيرة ميلاد أماكن عالم الإسلامي ولا جهة ليه وده ماذا قالنا ولا جهة ليه وحلا جهة ليه ميلاد أو حويان لو يقانو زينة لقو تنتو يعني حمانة لقو سمعيه باب جرب معروفة ولا قرني إنه وحويان وحنوم مغضى حياة بدن أو حويان
وسائل كذي بينهم مقارنة مرة بقولنا قبر قابل ما أركيسا هبين كذا صعوتني إنك ويلي قبر لوق سلتشوا أركيسا سلتها هذا اللوق إذا مرتبك وتعجبي سمر قارو 6 ساعة يبر أفر سبعة هبين لوق عريري تطبع عليه مكان سكري مرة قارو وديابس تمام هو هذا كذا فردية دربية الحلقة طاقة هذا كوا صفر يسوي سمع مركه هذه سدا أي دعوة إلهي سبحانه وتعالى وحوي روح كسر إذا طاعون حنونك طاعون كلا يراه إيو حنونك كلا أن كوي يجا كهري وحوي أن يسنكران إنه نقول علم حاعد الرما أنت يا عيادون وأجهر وحلا جرنجلون أو ياشري هذا دي لو يدي حي جرنجلون أدي لصون ولا يلها مانت حي جرنجلون حنونك دومة ملاريا دي حوا تي بي دي حنون صار يقان كريم لكن ما أنت حنون صبح أي بسيء هو هاي الشيء وحياة سنكر حضرك يسأل من ير ما يرو لا سنكر بقى يسوي دمبي مجلين روحا حنوصنها يا سنكر تقبا أما روحا قبا محوها إيش حنون كلا قبا وأنا لجرين جرين قبا وحا كينية مجتمع إذا فسهادي وحويا وحا صوت ظاهر تيزندي مركزي وحويا ده كيف يعني الراشد كي حمابة اسمه سيبو سامي يعني إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيه ثم بعثوا على أعمالهم آيات القرآن كوحيد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يعني قوني كنا قون ميسو لما نوى أسيبه قفل بقولوا يسيبوا قليسا طيب كاسي وقضب أرنتاس كواد مركة والزنا ده هدي أي ظاهرته إيقنا وحوين عقاب كاس باقود حنونا أن لقرنين إيه وحويان ضاعون أياكو ضاع خصلة اللبات أما أرنت اللبات والنبي صلى الله عليه وسلم الشيء يحديث كان وحي تهي وهدي دتكو أي سميان مجتمعوا يقولوا عقاب أي كل عيسو وحي تهي ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه ما نقصاميان ميزان كأي باقة حتى أي نقصاميان يجنا وحا كل أبار إيوه يعني نرول عريري حياة عريري إيوه السلطان أما حاكم إيجا مركز ظلمية وقصة قهرة أو نباتية أيها كل عالم أو حويا ميزانك قوم نبا له هلاقي يمكن رير مدين يعني وحكا له مهلاقي يمكن ضرورة أي قبصتي وحكا له مهلاقي وحي أهيد waxyaabihii ugu waaweynaa qudaac durugna way ahaayeen oo duljiif bay ahaayeen tuuga dadka dhaca wadada gala waxay kaloo ahaayeen kuwa miisaanka dadka ku nuqsaamiya miisaanka ay dadka ku nuqsaamin jireen waxa weeyaan markay iyagu beeganayaan waa soo buuxsan jireen markay iyaga dadka u beegayaan way nuqsaamin jireen miisaanka iyo beega waxyaabaha wax lagu cabiro dhan waxa weeyaan tadfiif bay ku sameeyeen jireen tadfiifki quraanka ilaahay ka hadlay waylu lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون مركي بيجيان وإذا تكون بيجيان إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوهم ويل للمطفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ذاتك مركي كسوا وحويان أي كبيجان يان يو يستوفون وبسنة يان وأوفسنة يان في عام ماشي الربيع يجي سنة يان لكن وإذا كالوهم ذاتك مركي بيجيان أو وزنوهم أو ميزان يان يخسرون هو ذاتك خساري وكلا هرب سمعت marka hadii arintaas ay sameeyaan dadka oo miisaanka ay dadka ku dhacaan oo miisaanka ay hubin waayaan qofkan xaqiisii ma qaatay mise waxa arkaysaa hadda dukaamada qaar ama dadka wax iibiya istihaana inay ku jirto inay iska fududaysanayaan miisaankii waxa weeyaan gabgab laga siinayo saas sonkorta iyo wixii la beegay looba fiirsanayba ama xaq bani aadanku soo raaca qof ka fikirayo والنفي قليل ما أكيس نادر سو ما أردت جب على السنة مركب ولا سنافين إسكان قفك مرحضو أنت شيء مرتها شيء ما يستنى بدي أما ها فهو هذا أما هو بروحه أما حكم مقناذين أما يانا كم مقنانين وحل ولا إسكان صار الركاز مجرد حتى يصدق على مركب إلهي وحكوا عقاب يا ضد كاسي أبار سيدو كرئي نول عريري هو حوي نولش ولا وقت كيو شدة المؤونة سمعت حياتي والوقت كينيا سيدو كلا وجور السلطان عليه يحاكم مركا يجنا قهره أو دبا سمعت
nimankii la oran jiray reer Ciraaq baa hadda koor Xasan al-Basri u soo dacwooday Xajaaj ibn Yuusuf al-Thaqafi bay ka dacwoonayeen waxay ninkan waxa weeyaan waana dhibay wahaakada way u calaacaleen markaas wuxuu yiri war ka baxa macaasida Xajaaj ibn Yuusuf ilaahay baa si oranayay ama uu toobad keenay ama waxa weeyaan uu idin dhaafin bi ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan ha ku kicina oo waxa weeyaan idinka dunuub galay dunuubtiina ilaahay subhanahu wa ta'ala uga toobad keenay Xasan al-Basri baa soo oranayay طيب qadiyada saddexaad waxay tahay ama saddexaad oo ummaddu haday ay sameeyso ka mujtamac ahaan loo ciqaabayo waxay ahayd walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama' walawla al-baha'im lam yumdiru dadka zakada ma diidaan zakada xoolahooda ma diidaan hadii ay diidaan waxa laga iyagana loo diidaa roobka dhibicdii cirka uga iimaanaysay baa iyagana loo diidaa intee meel baa roob la'aan adduunka meelo fara badan baa roob la'aan Soomaa meelo badan baa roobka caalamka islaamiga ku kooban tahay gaalada hadda aragto wad yaabaysa qabow bay ka cabanayaan ninka gaalkaas waxay soo shaqo tagaya asoo ilaahay caayo oo dhahay qabowgan iyo roobkan muxuu ahaa ilaahay buu caayo hadoo caalamka islaamiga waxaad arkaysaa meelo aan sanooyin baa roob arag roob ku filan baa sanooyin arag baad arkaysaa marka waa ciqaab ku dhacay ilaahay subhanahu wa ta'ala ku riday ka mujtamac ahaan hadii iyagu ay dambiga marba la yimaadaan zakadii marka hadii la diido oo la bixin waayo sidaas dhacda marka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ciqaabkaas hadii waliba walawla al-bahaa'im lam yumdiru ma yaraankaas xoolahaas aan ilaahay caasiyeen baana loo ku naxariisanaya ilaahay noogu naxariisanaya hadayna bahaa'imtaas jiri lahayn ma bar roobaysteen dadku rooba ma heleen bahaa'imta xayawaankaas ma yaraanka ee aamusana ilaahay subhanahu wa ta'ala aan caasiyeen ba waxa weyn ilaahay ugu naxariisanaya dadka soo ma aragtay قضية أفراد وحيتهاي ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ما بريان بويري بلنك إلهي سبحانه وتعالى يا بلنك الرسول كيسة حدي أي سيدا سميان إلهي سبحانه وتعالى وحكس لذا عدو أن يقعد أحد ذاهين يعني قال له وصل لذا بلنك إلهي هدي لبريان يا بلنك الرسول صلى الله عليه وسلم بلنك إلهي سبحانه وتعالى محاكم ذا عبادة إلهي باكم ذا وصلاة كوكته صلاة أي كوكته انت ما تكنين قف كان تكنين بلنك إلهي بوتشبيه فعل ورب بلنك إلهي بوتشبيه وكبح قفك وحويا إلهي سبحانه وتعالى أن أطيع عينين بلنك بوتشبيه وكبح جودهان عبادة إلهي سبحانه وتعالى قف كان كسر بحينين وحويا بلنك إلهي بلنك رسول بوتشبيه جودهان قوة حتى أن كرقص ومرأي سدح الصنفية ذاتك مجتمع كم ذهنا لما أنت بلنك إلهي بكبحين سو ما عرفت ما دام بلنك أي كبحين مركا إلهي سبحانه وتعالى وحو كعقابي عدو أن إياك أحضر ذهين عدو ششاية أيا لغو عقابي عالم الإسلامي أنه واساس إنه هو كجرنا وحويا يعني قال وحوي سكا يدلدلون يسوء ممتلكات كيني وحيابها أنه هيساني أولاً بيسكا قرانا يان لوانا هاد نكرر لوانا هاد نكرر محال عيد ومعاصنا نيو وحاصلنا وانا لقيه ليا لما حديث يعني وحيابها وتلماما يا معاصئة أولاً مجتمعنا واقعة ولقيه ليا لما هاد وحكم إذا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أئمته ذا هدي أيكوي أيسن كحكم من كتاب إلهي وأيكخيار قاتان وحي إلهي سبحانه وتعالى أسودجي إلهي سبحانه وتعالى وحكيرا بأسهم بينهم يعني باسكو بأسكو ذا أحضر وكيرا قبل لسكو درر دولة لسكو درر لسكو دعو حوين لا إسلايو ليك بدني داتو وهكذا حصل مدحوينه ودتكي نعا دتكي مدحوينها النعو وحيابا صلبا كدش بأسهم بينهم وحيابا صلبهم حدي وحويا سيدانا لا سميو guud ahaan marka xadiidkani wuxuu soo koobay oo noo shamliyay mujtamaca sida ay macaasida ay saameyn ugu yeelato
dhammaan waxaas dhan haddii ay soo muuqdaan mujtamacaasi waxaa ku dhacaya ciqaab yacni wada saameeya inkastoo aanu cadaab mustaqsila aanu ku dhacayn oo dabar jara sidii ummadihii hore oo kale laakiin ciqaabkaas wada saameynaya baa ku dhacaya xadiidkaasaana inooga filan yacni sida ay u saamaysa macaasida mujtamaca intaa haddaan kusoo koobno aahaarta iyo saamaynta macaasida waxaa jira asbaab qofka uu iskaga ilaalin karo macaasida haddii uu sameeyo biidni illaahi albaari waxa weeye ay u noqonayso wiqaaye iyo ka hortag ay u noqonayso qofka haddii uu sameeyo kow arrinta koowaad waxay tahay qofka muslimka ah inuu ilaahay ka xishoodo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay qofka haddii uu og yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu arkayo maqlayo sirtiisa iyo waxa uu la jahrayo taa haddii qalbigiisa uu soo geliyo dee qofka waa xishoonaya macaasidiina samayn mayo ku dhiiran mayo waa haddii iimaan uu leeyahay qalbigiisu qoyanya ilaahay haddii uu xusuusto oo ka xishoodo waxa weeyaan waxay u noqon kartaa sabab ka dar'isa oo ka celisa macsiyada sidoo kale qofka muslimka ah inuu eego nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u galay ee faraha badan ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcooyin fara badan buu ku siiyey aragga maqalka yacni guud ahaan jirkaaga oo dhan xubno haddaad u tiriso kama bixi kartid wa fii anfusikum afalaa tubsiruun kamaba bixi kartid soo ma aad nafafyaalkiina ma weydaan fiirinayn buu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay haddaad isfiiriso adu gudaha keliya haddaad fiiriso bannaanka intaan la soo gaarin jihaazu lhadmi iyo jihaazu lcasabi iyo jihaazu lbawli iyo waxaasaadan ka baxaynin iyo gudaha ajhizooyinka kugu jira iyo habdhisyada kugu jiro baadan ka baxaynba maanta oo dhan haddaad tiriso iska daa intaan gacmaha iyo indhaha iyo aan la soo gaarin idan waxaasoo nicama allah ku siiye subxaanahu wa tacaala inaad ciscaasi ku noqoto ood cisyaan la timaado makaa mudan yahay waa inaad fiiriso markaad macsi samayn rabtid fiiri nimcada ilaahay ku siiye subxaanahu wa tacaala war nimcadan ama lagaa qaado xaaraan baad rabtaa inaad eegto waa inaad tidhahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala indhahan warma inaad xaaraan ku eegto ayuu kuu siiyey soo kaama qaadan karo rabbi subxaanahu wa tacaala marka aad rabto inaad u sacyiso xaaraan iyo xumaan aad rabto inaad aado war lugahan ilaahay baa ku siiye subxaanahu wa tacaala ma mudan yihiin inaad xumaan la aado ood ku doonato haddii kawba lagaasi lagabada lagaa jara kaw ood curyaan fadhiya ahaan madaaba doonan lahaa macsi soo ma aragtay kullu dalik marka waxaa la doonayaa qofka marka uu raba inuu haddii uu damca in macaasi uu shaydaanka qalbigiisa ku soo rido inuu macaasi sameeyo inuu waxa weeyaan xusuusto nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala u galay si macaasidaasi marka uu isaga dariyo waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka mar walba cabsidiisa qalbigiisa ay ku jirto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba waxa weeyaan qalbigiisa uu ku jiro uu ka baqayo allah subxaanahu wa tacaala xusuusan yahay inuu hor istaagi doono maalin keligiina la xisaabi doono soo ma aragtid waxaa ka mid ah asbaabta qofka ka fogeynaysa macaasida waxaa ka mid ah inuu ilaahay jeclaado xubullah ama maxabatullah ayaa ka mid ah oo qofka haddii ilaahay uu jeclaado oo si dhaba u jeclaado xaqiiqatan macaasi oo dhan albaabkeedii waa xiray hadduu ilaahay si dhaba u jeclaado ninkii gabyayay shaacirkaa wuxuu yidhi yacni tacsi ilaaha wa anta tudhiru xubbahu hada muxaalun fi lqiyaasi badiicun low kaana xubuka saadiqan la adactahu ina almuxiba liman yuxibu mudiicu ina almuxiba liman yuxibu mudiicu qofka wax jecel ka wax jecel cidda uu jecel yahay waa adeecaa idan ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad jeceshahay cisyaan ma mudna allah subxaanahu wa tacaala inaad caasiso kaama mudna ee adeecitaan buu leeyahay waaba haddii aad jeceshahay oo jacaylkaaga uu dhab yahay haddii kale jacaylkaagu dhab maaha waxaa ka mid ah waxyaabaha sabab ugu noqon kara qofka inuu macaasidii iska fogeeyo ama uu ka fogaado caaqibadeedu inay xun tahay inuu qofka qalbiga ku hayo og yahay caaqibada ka dhalata iyo cirib xumadeeda inuu qofku og yahay oo macsiyada aysan ka dhalanin ilaa wax xun mooye weli miyaa la arkay macsi wax fiican ka dhashay ma way jirta macsi wax fiican ka dhashay ayay ka jiraan ma way jirtay soo ma aragti marka inuu qofka qalbigiisa geliyo caaqibada iyo waxa ka ratimayo inuu yahay wax xun oo qabiixa oon fiicnayn oon la mahdinaynin maa laa yuxmad inuu yahay waxaa ka mid a waxyaabaha ugu dambeyn qodobka u dambeeya waxyaabaha qofka yacni ku tawjiihinaya ama inuu macaasida ka fogaado
waxaa ka mid a qofka inuu ku xisaabtamo in waxa weeyaan uu adduunkan waqti yar joogayo uu is yiraahdo marka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala caasin rabo war xilligii ajashaada amay soo gashayo goortaa macaasiyada aad samaysidba amaad kaw tiraahdaa nafta kaa dhacdaa hayna kun fi dunya kaannaka caabiru sabiil kaannaka gariib oo caabiru sabiil xadiidka nabi sal slam cabdullahi ibn cumar muxuu dhihi jiray idaa amsayta falaa tantadiri sabaax wa idaa asbaxta falaa tantadiri masaa soo ma aragtid يعني هذا الصباح يصدق قلبها سوين هذا قلبها يصدق الصباح سوين الدنيا ذا وحوين قف ودقويني أما غريبة هم كأهو هدي أصلاً أكتهي إلهي سبحانه وتعالى مع سيسي إلهي سبحانه وتعالى مرة هذا قلبي جاء وكشره إن وحوين أجش الموجد أنت عاد مع سيد النحو ولا قنا يسينا نفتك أبا حيس موجد إذا مرة قلبي جاء وإنه صقر هدي بقلبي جاء يتاك كشره وقلبي جاء مرة كبه حركاسي إلهي سبحانه وتعالى مع سيس وبقيسا ستبه هدي الله يقينت إلهي سبحانه وتعالى waxaa ka mid ah sidoo kale qodobkaas baan ku gabagabaynayaa inuu qofka waqtigiisa ka faa'iideysto fiima yanfac waxa anfacaya inuu uga faa'iideysto waqtigiisa waqtigaaga haddii aad uga faa'iideysato waxa ku anfacayo macaasida albaabkeeda waa xirtay iska xidhi sababtoo ah waqtigu yacni nalama siin haddaan ka hadlaynayo qofka waxaa la doonayaa qasrul amal inuu ku jiro oo adduunyada uu ku joogo yani kaannaka qariib oo caabir sabiil inuu sidaa ku joogo waqtigana ka faa'iideysto laxdo walba oo soo marayso inuu fiima yanfac kaga faa'iideysto wix isaga anfacayo inuu geliyo oona macaasi kula leexanin laxdadaasi ama waqtigaas soo marayo maxaa yeelay maalinta qiyaamaha qofka waqtiga waa la weydiinaya laa tazuulu qadamaa cabdin xataa yus'al can arbacin waxaa ka mid ahayd can cumrihi fiima afnaa afartaa waxaa ka mid ahayd can cumrihi fiima afnaa waqtigiisa meesha uu ku dhameeyo qofka waa la weydiinaya waqtigana hadda ma garan doontid waxaad garanaysaa waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka warramayo qolyaha mujrimiinta ah wuxuu yidhi wayowma taquumu asaacatu yuqsimu almujrimuuna maa labithuu qayra saaca yani markaasay ku dhaaranayaan mujrimiinta saacad waxaan ahayn inaysan adduunka joogin waqtigii baa inaga dhacay هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته